laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa la dilay, tiro kalena waa la dhaawacay kadib markii kooxo ku hubeysan mindiyo ay siyaabo kala duwan ugu weerareen magaalada London ee caasimadda dalkan Ingiriiska. Goobaha lagu dilay wiilashani Soomaaliyeed ayaa aad isugu dhow, halka ilaa iyo 4 ruux oo dhalinyaro ah iyagana lagu dhuftay mindi, waxaana la dhigay goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada London. Ciidamada booliiska ee magaalada London ayaa goobta ay dilalka iyo dhaawacyada ka dhaceen waxay ka sameeyeen baaritaano. Ilaa iyo haatan booliiska waddankani Britain ma aysan sheegin cid ay u soo qabteen falkani oo ay la xiriirinayaan dhacdadii habeennimadii xalay ahayd ka dhacday. Telefishinka Home Cable ayaa booqday guriga hooyo Zainab Cabdi oo ka mid ah waalidiinta dhashay wiilashii xalay la dilay, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa: إنا لله وإنا إليه راجعون. دمان مسلمين Soomaalida muslimiin oo dhan wada salaamay gaar wiilkayga waxa la dilay xalay asbaabta loo dilay ma garanayo. Kii ka sii horeeyay 4 September la dilay waa 5 bilood gudahood waxaan labada wiil lagu dilay. Kan habartu ahaana 2018 kii la dilay 4 years ago. Seeman loo dilay kulli mindi baa lagu dilay. Marka waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaalida waa horta lambar 1, aabaha Soomaalida sidoo kale, laakiin waxaan ku baahnay community malihin oo strong ah oo xoog ah oo dadka caawiyo oo u gurmada ma haysano male community Soomaali. marka waxa waaye dadka kale community-dooda markay wax ku dhacaan waa u yimaadaan. Soomaali community Soomaalikiis ilmihii Soomaalida waa baabeen, ilmihii Soomaalida biday taagan yihiin, waxa la dhameeyay ayaga waaye, waxa la dilay ayaga waaye, waxa mid la geliyo wax badaha laga tuuro wabiyada laga tuuro ayaga. marka hookama maxay ku dhacday in anaga Soomaali target noqono oo wax noo doodo iyo wax anaga wax noo sameeyaan u weynay. xabsidii baa lagu dilayaa, xabsidii waa lagu dilaa, banaanka waa lagu dilaa. marka intee aadnaa waan ka xumaa nabadleyda nagu dhacday kulligeen baa naga Soomaalinimo aha. waxaan maanta halkaan oo joognaa oo taxsiin noo timaan ka qayb galnay annaga dhan uga nimid west to south to meel walba, ha ahaado youth worker ha ahaado community. maxay ay tad waxa halkaan ka dhacay geeri aan maxay ay tad laga sheekeyn karin. maamo 2 wiil weysay. hadda waxaan nahay Soomaaliya inaan gacmaha isqabsano oo aan ka banaan baxno ka dhidhidin wax loo baahan yahay waaye. meesha waxaan uga mahad celinayaa Home Cable ayagana walaalaha naga ah oo maalin walba noo taagan. waxaan ka mid ahay hooyooyinka xaafadda Camden ku nool habeenkii xalay ahaa seexan ee dhalinyaradu u joogto marka qof la sheegaba warwaraysa. xalay xaafadda cid seexatay may jirin. 2 wiil ayaa hal saacad oo isku xiga la dilay, 8 iyo barkii iyo 9 iyo barkii. caruurta waxaan xalay oo dhan uga baqanaynay inay maaragtay iyaguna ay maaragtay waa la isla soo wada wacay inay dibadda u cararaan oo maaragtay ay dagaal tagaan. Illaahi Raxmaani Raxiim. ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda laabtooda in ilaahay isu soo jeediyo intii islaam ummadda rasuulka ah, in bugta iyo in gaalshira ku jira iyo in aakhira joogta in ilaahay dambigooda ilaahay dhaafo. intii islaam ummadda rasuulka nin walbana dhibaatadii haysa ilaahay ka dulqaado. Cabdi Fataax Ali Shirwac, telefishinka caalamiga Home Cable, magaalada London.